warjaalayaal soo dhawaada dagaal aan horay ooga dhicin galgaduud oo qosolkiisa iyo murugadiisaba wata oo qisooyin badan laga qoray yaa galgaduud ka dhacay oo dhex maray Saleebaan iyo Cumar Dheer oo wagardhaca dagaalkii shala dhacay waad aragteen isbitaalkii Cadaado oo dhaawacyo fara badan la geeyay oo dhiig la waayay oo la baafinayo sidoo kale rag badan ayaa geeriyooday oo Saleebaan oo uu ka mid yahay abwaankii guud ee beesha Saleebaan sidoo kale waxa dhaawacmay gudoomiyihii degmada Cadaado dagaalka qasaaraha baan uu ka soo gaaray Saleebaan waxay la galeen niman la yiraahdo Cumar Dheer oo wagardhaca arinta marka qosol kale anigoo dib ka gelayo faahfaahinta qaabka uu dagaalku u dhacay cidda ku dhimatay goobihii sida loo kala qabsaday xaalku hadda suu yahay anigoo dib ka dhiganayo qiso yar oo shala dhacday baan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan la wadaago waad aragteen nimankii Saleebaan oo miidiyaha ka barooranayo gudoomiyihii oo ku ayaana la soo gaaro shaamashuutar baan nugula laayay hub aanan aqoon oo casri ah yaa naloo isticmaala horta nimankan Saleebaan waxay la barooranayaan oo mareexaan baan laayay iyo shaamashuutaraan loo adeegsaday ay leeyihiin horta waxba kama jiraan niman Cumar Dheer oo meel degan bay weerar ku qaadeen nimankii Cumar Dheerna laba wiil bay geed u saareen laba geed u kala saareen oo dhaheen xudunta ka wada toogto ayagina geedka hoostiisa ay ku qayilayeen oo dagaalba ma gelin oo isaga baashaalayeen shax bay dheelayeen Cumar Dheer tusha dagaalba lama gelin Saleebaan nimanka Saleebaan laayay oo waxa aragtay ku dhigay oo dhaawacyada dhiigga loo waayay iyo dhimashada qaybna ay ka carareen qaybna ma aragtay Cadaado lagu xabaalay laba wiil oo laba geed la kala saaray bay horta ilaa shala la dirirayeen mareexaanka ay leeyihiin mareexaan baa la laayay waa labada wiil oo geedaha loo saaray oo Cumar Dheerta mareexaan baan dagaal la gelin ilaahay wagardhac baan dagaal la gelin Cumar Dheerta laftirkeeda baan dagaal la gelin labada wiil iyo Saleebaan baa 5 saacadood dirirayay warkayga si fiican u dhuux shalay dagaalkii ahaa laba wiil oo Cumar Dheer ah oo laba geed ay kala saareen oo shaamashuutar haysta yaa xudunta ka wada toogtay oo waxaad aragtay shalay ka laayay Cumar Dheertu dagaal ba lama gelin geed bay ku qayilayeen labada wiil bay geed u saareen ka dhaansaday dhaheen ku shish barta war Cumar Dheertu waa cabsi Cumar Dheertu annagu mareexaankeena kale iyo waxaynu ku tababarnaa meelaha bacaadka moogta bacaadka mid Cumar Dheer aan inta wacay baan waxaan iri war maxay taa nimankan aad xundurta ka wada toogateen oo xudunta xabad ooga wada taal oo dhiigga loo raadinayo qaybna dhintay qaybna dhaawacoodii dhiig baxa u dhimanayo maxay taa nimankan asaa u leyseen baa dagaalku ba hal saac buu socday marka wuxuu yiri boowe laba wiil baan laba geed u saarnay oo dhaardheer marka waana wiilal tareerin u socday oo maca gacantoodu aad uma fadhin ku leeyay labada wiil waxaan iriniyo mareexaankeena kale annaga mareexaanka inta badan iyo Soomaalideena kale waxaynu ku tababaranaa meel bacaadaan inta buurino oo caagada gelinaan ku shish baranaa nimankii Cumar Dheer waxayba kitaab ku mareen waxaan Saleebaan ahayn iyo sharanshuur ahayn inaysan ku shish baranayn halka xudunta ay ka toogteen niman shiishka la barayay yaa laayay Saleebaanka ku haya mareexaan baan laayay mareexaan oo dhan baa isa soo raacay caabud waaq baa laga yimid meel hebla laga yimid yaa geeriyooday qasaaraha Saleebaan gaaray dagaalkii cidda ku dhimatay horta dadka caanka abwaankii beesha Saleebaan abwaankii caanka ahaa baa ku geeriyooday ilaahay hadduu ku samoogalayaa gudoomiyihii Cadaado asna dhaawac baa soo gaaray hogaamiyihii ciidanka duulaanka soo qaaday watay ee xaqdarada ku socday asna meeshuu ku dhinto looga cararay ilaahay hadduu ku samoogalayahay deegaankii lagu dagaalamayna Cumar Dheer baa ku doobinayso oo joogto oo degan nimankina waa isaga carareen
ayagoo meydkoodii iyo dhaawacyadoodii ka cararay wixii ay qaadi kareen oo fududaana la tegay bay cadaado galeen tuulada ay cumar dheertu degan yihiin iyo tuulo walba oo mareexaan degan yahay waxaa loo baahan yahay 30 kilomitir oo mareexaanku ku doobiyo oo ku laandheereeyo inay ka horeyso 30kaas kilomitir cidii lagu arko xudunta laga tooganaya niman horta lama kala gardarna shalay duulaan baad soo qaadeen Saleebaanow niman meel degan oo ku tareerin gareynayo oo waxay ku tababartaan la oo meel banaana ku laandheereynayo baad weerar ku soo qaadeen xuduntaani lika wada toogto waa nililaayi meydkiini baad ka caradeen laba wiil oo geed la saaray yaa ilaa shalay la diriireysay oo kabihiini ooga caradeen oo meydkiini aad ka qaadan weydeen ilma yaryar marka talaani soo jeedinaya qofku haduu gar daran yahay ma guuleysto weerdhacna iyo cumar dheer midna dagaal looma tilmaamo xabadna looma sheego xabadoodana waa taqaanaa say u kulushahay ilma yaryar oo hinta iyo baroorta iyo diifka iyo waana la laayay iyo Soomaaliyay iyo shaamashuutaraan nugula la iyo hubba nugula laayay iyo hubba nugula laayay hubki baa naloo adeegsada hubki baa naloo maxaa hubka niliya hal saac buu socday hal saac buu dagaal ku socday laba wiil baa in dilaysay kuwii fadhiyay bal yasmada ay cumar dheertu ay sameynayaan kuwii fadhiyay oo meesha joogay wallahi inay saqaadkooda ka kicin nimankaas aabi baad u aadeen marka waxaan leeyahay haddii aad baqanaysaan oo aad daba jilic tihiin oo inaan rag iska dhicin karin Saleebaanow ilma yaryar orodka dambe iyo kan hore kala daayay labada orod kala reeba hadda soo kuma haysaan oo qaramada midoobay iyo beesha caalamka Saleebaan oo ka dacwoonayo wagardhac cumar dheer soo qaramada midoobay iyo beesha caalamka uma dacwoonayo soo Saleebaan kuma hayo wagardhac baa shaamashuutar nala dhacday oo xudunta naga wada toogatay bari hadaad wagardhac soo aadaana madaxaan ka wada guraya deegaanadiina jooga waliba waxaad banaysaan 30 kilomitir oo ay ku laandheereeyaan oo nimanka markay doobinayaan ay ku doobiyaan baneeye haddaad nabad rabtaan Saleebaanka markii la laayo oo la bajaqiyo oo ay naf u baqaan ilaahay waxay ka baryaan ilaahayow wagardhac naga nabadgeli ilaahayow nabad nasiib wagardhacduna waxay yiraahdaan ilaahayow kaamaan baryin nabad habargidir ilaahayow kaamaan baryin Saleebaankuna markii ay soo kululaadaan oo la bajaqiyo yahay salaad inta tukadaan bay dhahan ilaahayow wagardhac naga badbaadiyo ilaahayow wagardhac naga qabo sideedana ninku markuu jabo la bajaqiyo oo awoodiisa la tuso wuxuu dhahaa hebel ima diline waa la isugu kay tagay buu yiraahdaa waa la isugu kay tagay buu yiraahdaa marka nimankaas waa jabeen aad bay u jabeen dib weyn baa gaaray ilaa xala cadaada lagama seexan isbitaalkii cadaada dhiig la'aan baa ka dhacday magaalada gudaheeda xataa waa laga cabsanayo wagardhacdii baa laga baqay inay gudaha cadaada soo galaan oo ay ka daba yimaadaan dhaawacyadii isbitaalka cadaada la geeyay yaa hub lagu waardiyeynay dhiigna waa loo waayay dhaawacyo badan baa dhiig la'aan u geeriyooday xala facebookyadoo dhan bay ku soo qorayeen dhiig baa loo baahan yahay oo plus baa loo baahan yahay oo b baa loo baahan yahay muxuu ahaa oo minus baa loo baahan yahay waxaasay lahaayeen marka waxaan leeyahay nimayow saa haddaa u rafaadaysaan oo saa haddaa u jilicsan tihiin lafkaa weyn waa ku jebisaa wagardhac oo shaamashuutar heshay yaha awal caagley bay ninku uleyn jireen iyo dhamas bay ninku cayrin jireen nimankii oo shaamashuutar helay labay inta geedaha inii saaraan bay qayilayaan oo ku gurayaan qaadkii ilaa shala Saleebaan waxay la dirirayeen laba wiil oo cumar dheer oo geed la saaray yaa mid walba xundurta ka tooganaysay ayagina waa ku gurayaan oo qayilayaan markaas waxa ku leeyeen dagaal baa galgaduud ka dhacay mareexaan baa isugu keentay baabuur baa gubnay iyo xaggan gubna warjaalayaal waa idin salaamay muuqaalkaasi share gareeya leegta la dhaca
afayeenku بريهان ميديا وكمغنا هدو صولة بكعلين ياي بالك فقيه أو شيرت